بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقال كله iyo bar kale oo bilan oo boqoran aynu ilaahay kaga rajaynayna subxaanahu wa tacaala inaynu wax ku kala korarsano naftayda ugu horeyso iyo nafaha Soomaaliyeed dhammaantood aan u rajaynayo guul aakhiro iyo tu adduunyaba waa muuqaal kale oo aynu kaga hadlayno ila alxayaati alafdal ila naxwa alxayaati alafdal inuu nolosha xagga wanaagsan u hagaajino muuqaalkeena kooban waxaynu kaga hadli doonaa fikrad aad iyo aad u qaaliya asal weyn ku leh diinteena islaamka fikrad aad u qiimo badan oo qofka ku dhagaa uu arki doono faa'iidada uu leeyahay bal keen baynu aragnay aniga la hadlayaa aan arkay qofku haddii uu fikradda ku dhagana uu guul weyn ka gaarayo hadaftiisa waxaan ka soo warranay muddo hore qorshayaasha iyo ahdaafta iyo soo loo dejisto iyo qofku inuu u baahan yahay qorshe iyo waxyaabo la halmaala haddaba si qofka ay ugu najaxaan waa in uu fikradan la falgalaayo oo ku dhaqmaa fikradani waxay ku leedahay laa tufakir binnajax walakin bikhalqi caadatin bal bikhalqi caadatin naajixa ka fakerin guusha iyo inta ay leeg tahay iyo quantity-geeda iyo xajmigeeda ka fakerin laakiin waxaad ka fakertaa inaad samayso caado iyo dhaqan guuleystay maxaynu uga jeedaa caado dhaqan guuleystay مثلا hadafkaagu hadduu ahaa inaad qoraan noqoto oo aad qoraannimada hadaf ka dhigatay noloshaada meel weyn kaga jira markaba ha bilaabin oo caadaha ka dhiganin oo hadafkaaga ha ku xaqiijinin inaad shay weyn isku taarto oo aad tiraahdo maxay anu waa inaan qoraa 20 buug sanadkan soo socda laakiin simply si fudud waxaad tiraahdaa waa inaan maalin kasta hal maqaal qoraa kulli basaata maalin kasta iyo maqaal ama usbuuciyan waa inaan soo saaraa 3 maqaal ama bishii waa in 5 maqaal laga helaa yani wax fudud kadibna tastamiru bihi waa joogtayni Soomaaliduna hore uga mahmaado waxay yiraahdaan sadar iyo subax waxa badan iyo sadarka badan subaxa badan baan u jeedaa subax sadar iyo subaxa badan waxay la qorayo dadku ay qorayaan waxa mar kasta badan waqtiga aynu haysano marka inta aynu ku daali lahayn kamiyadda iyo aynu eriyeen lahayn waqtiga aynu eriyeen مثلا tusaale ahaan qofka wuxuu doonayaa quraanka kariimka inuu xifdiyo ma waxa wanaagsan inuu yiraahdo anigu waa inaan sanadka ku dhameeyo kadib intuu hadafka gaari kari waayo oo halkaas ay ka dhacdo niyad xumo iyo ixbaado ka dhaco mise waxa wanaagsan inuu qofkaasi yiraahdo waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo quraanka xifdigiisa maalin kasta safxad baan xifdiyaa kadibna sanawaad ay ku qaadatay laakiin uu arkay isagoo dhameeyay quraankii waqtigu iska soconaya waqtigu isku raya imisa inaga tagay waqti imisa inaan waqti maalin ku luminay almuhim fikradan waxay ka qayb qaadanaysaa oo fikradan ku dhiirigelinaysaa in aad najaaxaaga iyo guushaada aanad ku xidhin tirada iyo xajmiga aad guuleysatay laakiin aad ku xidho caado wanaagsan ma samaysatay caado wanaagsan ma samaysatay markaynu leenahay waxaynu uga jeednaa waa shay uu qofku la qabatimayo oo uu ku dhagayo oo hadday maalin ka maqnaato uu dareemayo warwar walbahaar uu dareemayo inay wax weyn ka maqan yihiin uu dareemayo inuu meel weyn maanta ay ku banaanaatay shaygaas caado ku noqday shaygaas noloshaada ka qayb noqday laakiin shayga marna aad samayso marna aad iska tagtaa ma la yanfaco shaygaas wax badan kuma anfacayo haddaba tajribadani iyo maxaa idhaahdaa qadiyadani waa qadiyad aad u anfacday nabigeena waxaa laga wariyay calayhi salaatu wassalaam qaliilun daa'im khayrun min kathiirin munqatic qaliilun daa'im shay yar oo aad joogtayso oo weligaa kula socda ayaa khayrun ka khayr badan min kathiirin munqatic wax fara badan oo aad kala goyso taasoo kale xadiiska waxaa laga caaisha nabiga waxay ka warisay calayhi salaatu wassalaam inuu rasuulku yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuha wa in qal ilaahay camalkiisa waxaa loogu jeceliyay xaggiisa ilaahay subxaanahu watacaala adwamuha kala joogteeyo wa in qal haba yaraade
ilaahay xaggiisa waxaa loogu jecel yahay kala joogteeyo wa in qalla haba yaraadee haba noqdo mid yar oo yani aan macna ma laga yaabaa qofku inuu maalintii habeenkii inuu hal ragcad kaco faqad keliya ragca waaxida laakiin ragcaddaasi ay samada ka xusan tahay meel ay kaga qoran tahay oo waqtigeeda la yaqaano oo ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisa u sheega laga yaaba marka qofku joogteeyo uu ka go'i waayo هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ساسي ahaan jireen dadkeenii wanaagsanaa ee khayrka badnaa aynu ku daynaynay nabi maxamed ugu horreeyay calayhi salaatu wassalaam maruu fiirsada hadda nabi maxamed taluusi calayhi salaatu wassalaam cabdillaahi ibnu camr ibn alcaas radiallahu canhu cabdillaahi ibnu camr ibn alcaas oo inan yara u dadaalaya oo cibaadada u heelan ayaa nabi maxamed u yimid calayhi salaatu wassalaam markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu ku yiri cibaadada waan karaya markaasaa rasuulku uu ku yiri sala allahu calayhi wasalam la tiriyo cabdillaahiyow soonka صدح الشبيشي كسون كسول رسول الله أنا أقدر أكثر من ذلك إنت كبر من كريا سكوع عقولي صلى الله عليه وسلم داخل ميت كسيت سنين كسون إنت كبر من كريا وسودي رسولك وحش سوق علينا افطر يوما وصوم يوما ما لنا أفطر ما لنا صوم كسوكولي إنت كبر من كريا سكوع عقولي صون كاك خير بدل مجرو عبد الله بن عمرو بن العاص تصور إنه مركب وينادي وبحين شري فدية وكو على علي شري miyaan iska qaadata taladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu ahaa qof jecel dadku diinta inay u fududaato oo in wax culus ku noqono oo kasoo taagnaadaan bal u fiirso marka aad isku xukunto inaad maalintii 10 ragcadood tukato iyo 2 ragcadood oo keliya keeba fudud 2 ragcadood baa fudud caal biduuni niqaash biduuni ay inkaar taasaa fudud wax allo wax laysa qofku kumaya waa 2 ragcadood oo keliya laakiin markuu 10 isku qaado laakiin qofku markuu isku qaado 10 ragcadood أنتم ممكن هذا كتجان هذا هدف كسوق الجوية فأوصي بالجميع رمان وحنا دار من دارك النبي محمد عليه الصلاة والسلام هدف كينا يغرشهنا إن تجيبينه أن يريسنه نرشوا ويتشوكتها وينو نولانينا هدف كينا وينو قالنا إن شاء الله تعالى عن كجب حياة قفوا إنه نرشي سوحون كبوحية وقت كاس سعودية عربية أو يسكت دايو 10 دقيقة إنه إنجليزي iyo luqad inuu barto ay ugu horeyso luqadda carabiga shay cajiis ka xiran tahay tan luqadda maanta cilmigu ku qoran yahay luqadda ingiriiska ahayd saacad barkeed ama rubuc saac inuu siiyo quraanka iyo akhriskiisa iyo xifdigiisa rubuc saac inuu ilaahay xuso subxaanahu wa tacaala rubuc saac inuu kalimaad ingiriisi barto rubuc saac inuu xirfad kala korarsado oo aanu aqoonin rubuc saac inuu ehelkiisa digiisa la qaato wax waqti aan badnayn inuu hadafiisa u qaybiyo taasuu guusha ku gaadhayaa hadduu joogteeyo oo uu ku dadaalo ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala ilaahay inuu ina gaadhsiiyo ahdaafteena kuweena aakhiro iyo kuweena adduunyaba allahuma aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu